بسم الله الرحمن الرحيم وضبط عاوة برنامج كان آن إذا كوجو هيننا وحا كمدا ميلتريجا إسرائيل أو عاوة دارتي هجاميها حوتيين عبد بارق الحوتي إسرائيل مركزنا الشيء إن ويهاي برتلمامات كودا كواد أي يمن عقد جوجليتن أي إيمانيسا يدور رقاقة غير يمن أي إسرائيل كوهيان دقين هبين كي أفراد أو حريرة يجو بيكسنايا جوبة حساسية حوتيين أو كهاللي waxa ay ka yeelayaan shaqaalaha qaramada midoobay ka tirsan ee dhawaan loo xiray tuhunka basaasinimo maxaa ka jira in shaqaalahan loo haysto inay u basaasayeen Mareykanka iyo Israa'iil xog baan idinkaga haynaa ciidanka Israa'iil oo shaaciyay xilliga ay bilaabayaan howlgalkooda buuxa ee ku wajahan magaalada Gaza ee bartamaha jiida Gaza Mareykanka oo ku andacoonaya in aqoonsiga dawlad Falastiiniya uu ibtilo iyo mishkilad hor leh ku noqon doono bariga dhexe wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil oo shuruud ku xiray in madaxweyne Macron uu soo booqdo Israa'iil taasi oo ah in Faransiiska oo ka laabto go'aanka uu ku aqoonsanayo dawlad Falastiiniintu ay yeeshaan maleeshiyada RSF ee Suudaan oo duqeeyay cisbitaal Sacuudiga oo ka dhisay magaalada Al-Fashir oo maalmahani duqeyn ba'an ay ku socoto Faransiiska oo shaaciyay in ay meel wanaagsan marayso hawlaha damaanad qaadka amni ee Ukraine sheekada ugu dambeysay ee barnaamijkan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay weliga ma aragtay mise maqashay taageerayaal kubadda cagta ah oo ciyaartoy kooxdoodu ay soo iibsatay oo uga mudaharaadaya oo u diidan inuu ciyaaro kooxda sababtu maxay tahay waa arrin la xiriirta dagaalka Gaza dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii wara ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka soo dhawaada mar kale daawadayaal waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku hormaraynaa colaadda Ukraine warar la xiriira iyadoo lagu soo warramayo in wadamada reer Yurub ay marada u raxayaan sidii Ukraine ay u heli lahayd damaanad qaad amni haddaba war ay gordhaweyta soo tuurtay wakaaladda wararka ee AFP ayaa waxaa lagu sheegayaa in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu sheegay in maalmaha soo socda go'aan laga gaari doono qorshaha damaanad qaadka amni ee Ukraine hadalkan ayuu jeediyay kadib telefoonka mar uu kula hadlay dhigiisa Mareykanka Donald Trump kadib kulan ay yeesheen dalalka taageeraya Ukraine Macron oo dadka wararka fidiya la hadlayay ayaa yiri waxaan wicitaan telefoonka la yeeshay madaxweyne Trump natiijada wicitaankani waa mid sahlan maalmaha soo socda waxaan go'aan ka gaari doonaa taageerada Mareykanka iyo damaanad qaadka amni sidii aan sheegay Mareykanku wuxuu ku lug lahaa marxalad kasta oo geedi socodka ah madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kale daboolka ka qaaday in 26 wadan oo u badan Yurub ay ballan qaadeen inay ka qayb qaadanayaan waxa ugu yeeray ciidanka xaqiijinta oo qayb ka noqon kara xabad joojin suurtagal ah oo dhex marta Ruushka iyo Ukraine iyagoo ciidamo ku daabuli doona Ukraine dhulka badda ama cirka Macron ayaa ku nuuxnuuxsaday in kadib kulan uu la yeeshay isbahaysiga doonaya taageerada Ukraine in ujeedada ciidanku aysan ahayn inay dagaal la galaan Ruushka wuxuu sheegay in Jarmalka Talyaaniga iyo Poland ay ka mid yihiin 26 dal ee taageerada u muujiyay qorshahani iyadoo qaarna ay diyaar u yihiin inay tababaro ka geystaan waddanka Ukraine oo ay tababaraan ciidanka ama inay xaqiijiyaan ammaanka cirka dhulka iyo badda wuxuu xusuusiyay in damaanadaha amnigu ay ugu horeyn ujeedadoodu ay tahay in la hubiyo wasiirka u dhigaya inaanay jirin xayiraado lagu samaynayo tirada ama awoodaha ciidanka Ukraine inta lagu jiro wada xaajoodyada intaasi oo ku daray tani waa mid aynu difaacayno waana ilaa iyo dhamaadka mid aan u taaganahay Macron ayaa sidoo kale sharaxay in dalalka Yurub ay soo rigi doonaan cunaqabateyn cusub taasi oo la jaan qaadaysa Mareykanka haddii Ruushku uu sii wado diidmada nabadda sida hadalka uu yiri isagoo sheegay in sidoo kale uu jiri doono xiriir cusub oo dhex mari doona Mareykanka iyo Ruushka madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in Kiev ay xulafadeeda la gaareen isfaham ku saabsan qaabka guud ee damaanadaha amniga ayna socdaan diyaarinta dukumeentiyada
dal kasta u ogolaanayo inuu ku biiro qorshahani waxaa intaasi uu ku daray in ciidan xoog leh oo Ukraine ay leedahay oo udub dhaxaad u noqon doono ballanqaadka amniga isagoo ku booriyay shirkadaha difaaca Yurub inay kordhiyaan wax soo saar buuxa madaxweynaha Ukraine ayaa amaanay go'aanka xulafada Yurub ee ah inay ciidamo ku daabulaan dalkiisa si ay u buuxiyaan damaanadaha amni taasi oo qayb ka heshiis kasta oo suurtagal ah oo lagu soo afjari karo colaadda Ruushka isagoo ugu yaray tallaabooyinkaasi kuwa habboon madaxweynaha golaha Yurub Antonio Costa ayaa geestiisa sheegay in xulafada Ukraine ay gacmaha isqabsadeen si ay u xoojiyaan damaanadaha amniga ee Ukraine ee dhanka cirka badda iyo dhulka taasi oo lagu taageerayo Ukraine haddaba arrintan Ruushku goorsi horeysay oo maanta si adag ayuu uga hor yimid gabadha uu ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka Maria Zakharova ayaa sheegtay in aysan aqbalayn in wax ciidan ah oo shisheeye la keeno Ukraine arrintaasna ay u arki karaan dagaal haddaba qorshahan Donald Trump oo ku biiri doona suurtagal ma tahay in foodil la istiro sababtoo ah Ruushku wuxuu ka aaminsan yahay in ciidamo shisheeye la keeno Ukraine qadkii casa oo laga tallaabay laakiin waxaad moodaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron inuu marada u ruxayo qorshahan lagu doonayo in ciidamo lagu geeyo Ukraine inkastoo macluumaadyo laga helayo warbaahinta taabacsan dowladda Ruushka ay sheegayaan in durbaba ciidamo ka socda NATO ay joogaan waddanka Ukraine kuwaasi oo qayb ka qaadanaya howlaha tababarka iyo dhanka istiraatiijiyadda dagaalka oo Ukraine ay ka caawinayaan arrimahani waxay sidoo kale ku soo aadayaan iyadoo magaalada Beijing wada hadallo ay ku yeesheen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin digiisa Shiinaha Xi Jinping iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un lama oga in arrimahani ay salka ku hayaan xiisada laga cabsi qabo inay ka qaraxdo Ukraine oo mar ay dhici karto fooda inay isdaraan NATO iyo Ruushka wixii warar ah ee arrimahaasi ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ama barnaamijka intaynu ku jirno ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xagga colaadda Suudaan haatan aynu jaleecnay wararka ka imaanaya waddankaasi Suudaan ayaa waxay sheegayaan in maleeshiyada RSF duqeymo ay ku hayaan magaalada Al-Fashir duqeyntii ugu dambeysay ayaa waxaa la sheegayaa in lagu beegsaday cisbitaalka Sacuudiga iyo xeryaha dadka barakacay ee magaaladaasi ee caasimadda gobolka Darfur ee galbeedka dalka Suudaan dhankiisa dhankooda ilo wareediyo ayaa waxay u sheegeen warbaahinta in ciidanku ay fashiliyeen weerar RSF ay ku soo qaaday xarun ciidanka difaaca cirka ee Al-Fashir kuta subaxnimadii hore ee Saaka waxaana la sheegay in ciidanku khasaare xooggan ay gaarsiiyeen maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday arbacadii shabakada dhaqaatiirta Suudaan ayaa ku eedeysay RSF oo hogaamiyo Maxamed Hamdan Dagalo oo loo yaqaan Ahmeti inay ku garaacayaan madaafiic magaalada Al-Fashir iyo sidoo kale in la sheegayo inay xasuuq ka geysteen gobolada koonfurta Kordofan iyo galbeedka Kordofan iyo weliba dhanka waqooyiga iyadoo macluumaadkan intaas ay ku darayaan in xaaladdu ay tahay mid ka sii daraysa tan iyo bishii Abriil 2023 ciidanka Suudaan iyo kooxaha RSF ayaa ku jiray dagaal sababay dhimashada in ka badan 20,000 oo qof iyo barakaca 15 milyan oo qof sida ay sheegayaan qaramada midoobay iyo hay'adaha maxalliga laakiin daraasad ay sameeyeen jaamacado Mareykan ah ayaa dhimashada waxa ay ku tilmaamtay 130,000 oo qof inay dhimashada imika gaarayso waa tahay haatan aynu jaleecno xagga iyo colaadda Xuutiga iyo weliba Israel habeenkii afraad ayay Xuutigu duqeymo ku hayaan Israel iyagoo wacd ku maray in ay sii xoojin doonaan duqeymahaasi ciidanka Israel ayaa dhankooda ku andacooday in laba dayuuradood oo daroon ah oo laga soo tuuray Yaman ay ka hortageen waa weerarkii labaad oo tan iyo maanta Xuutigu ay ku qaadeen gudaha Israel waxaana tan iyo ka dambeysay kadib markii kooxda reer Yaman wacd ay ku martay in ay u argudi doonto ra'iisul wasaarahoodii dowladda caalamku aanu aqoonsanayn ee Sanaa Ahmed al-Rahwi oo qamiistii hore Israel ay ku dishay duqeyn ay ka geysatay magaalada Sanaa isla wararkan ciidamada Israel ayaa goorsii horeysay oo maanta waxay si rasmi ah shaaca uga qaadeen in ay dileen 12 saraakiil sarsare oo Xuutiyiin duqeyn ka dhacday
magaalada Sanca toddobaadkii hore waxaana ka mid ahaa ra'iisul wasaarihii Xuutiyiinta iyadoo lagu sheegay warkan ka soo baxay ciidanka Israa'iil in hadda hogaamiyaha Xuutiyiinta Cabdimaalig al-Xuuti uu yahay bartilmaameedkooda koowaad oo ah in la khaarejiyo waa si hadalka loo dhigay duqeynta dhacday Khamiistii ayaa lagu beegsaday goob ay ku shirayeen mas'uuliyiinta la dilay ama la dhaawacay waxaana ay ka dhacday magaalada Sanca warkan ka soo baxay ciidanka Israa'iil ayaa ku soo aadaya iyadoo goorsii horeysay oo maanta wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Israel Katz oo ka falcelinaya weerarka Xuutiga uu sheegay inay si adag uga jawaabi doonaan weeraradaasi isagoo soo qaatay erayad diimeed oo ku xusan buugga Baybalka war kale oo arrimahan la xiriira mas'uul ka tirsan dawladda Xuutiyiinta ee caalamku aanu aqoonsanayn ayaa sheegay in shaqaalaha qaramada midoobay ee dhawaan ay xireen looga shakisan yahay inay u basaasayeen Israa'iil iyo Mareykanka wuxuu sheegay in kuwa dambiga lagu helo loo gudbin doono maxkamadda halka qaramada midoobay ay xaqiijisay in shaqaalaheeda qaarkood Xuutiyiinta ay u xiran yihiin muddo sanado ah ergeyga qaramada midoobay ee Yemen Hanis Gundenberg ayaa axadii la soo dhaafay waxa uu ku nuuxnuuxsaday in Xuutigu ay xireen ugu yaraan 11 ka tirsan shaqaalaha hay'adda kadib duqeyn Israa'iil ay ku dishay ra'iisul wasaaraha Xuutiyiinta Ahmed Qalib Nasir al-Rahawi iyo 9 wasiir iyo mas'uuliyiin kale oo dawladeed taasi oo muujinaysa xiisada kor u sii kacaysa dadka la xiray waxa ka mid ah shaqaale ka tirsan barnaamijka cuntada adduunka ee WFP iyo hay'adda dhallaanka ee UNICEF tobanaan kale ayaa sidoo kale la xiray sabtidii la soo dhaafay iyagoo lagu tuhmayo inay la shaqeynayaan Israa'iil sida ila abni ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP xitaa ka hor intaan la xirin axadii mas'uuliyiintan Xuutiyiintu waxay horay u hayeen 23 shaqaalaha oo ka tirsan qaramada midoobay qaarkood waxaa la xiray 2021 halka kuwa kale la xiray bishii Juun 2024 waxaana lagu eedeeyay in ay qayb ka yihiin shabakad basaasiin ah oo Mareykanka iyo Israa'iil si Soomaaliya magaca samafalka ugu adeegayay qaramada midoobay si adag ayay u diiday eedamaha ka dhanka ah shaqaalaheeda wahagaag gordho waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay Gaza Mareykanka oo leh aqoonsiga dawladda Falastiiniya wuxuu mushkilad ku yahay bariga dhexe Israa'iil oo shuruud adag ku xirtay madaxweynaha Faransiiska inuu soo booqdo Israa'iil wararkaas iyo qodobo kale intaan u gudbin aynu ku hakanno qadar xayisiina soo dhawaada mar kale daawadaya wali waxaad la socotaan barnaamijkii qobanaha oo toos idinkaga imaanaya stuudiyahayaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka Facebook-ka Twitter-ka ama X iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad kala socon kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka xagga Gaza aynu haatan qoraansanno halkaasi oo dagaalka Israa'iil ay ka wado ee lagu sifeeyay xasuuqa caawa uu galay habeenkii 700 oo habeen haddaba wararkii ugu dambeeyay militariga Israa'iil ayaa la sheegaya tan iyo saaka 69 qof oo Falastiiniin ah in ay dileen qaybo badan oo kamid ah marayka Gaza sida laga soo xigtay warar laga helay cisbitaalada jiida Gaza 39 kamid ah dadkaasi ayaa lagu dilay bartamaha marayka Gaza 14 kamid ah waxay ahaayeen dad gargaar u socday telefishinka kanal 14 ee Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu sheegayaa in hawlgalka balaaran ee Israa'iil ay ku doonayso inay ku qabsato magaalada Gaza ee jiida Gaza ay hawlgalladaasi bilaaban doonaan toddobaadka dambe waxaana lagu bilaabi doonaa baa yiri duqeyn xagga cirka kadibna ciidamada dhulka ay halkaasi gali doonaan telefishinka ayaa sheegaya in maalmaha soo socda la soo saari doono amaro dadka lagu amray inay iskaga baxaan bartamaha marayka Gaza iyadoo dadka loo barakicinayo dhanka koonfurta isla wararka Israa'iil wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar ayaa ku booriyay dhigiisa Faransiiska Jean-Noël Barrot inuu ka laabto qorshaha Faransiiska ee aqoonsiga kaliya ee dawladda Falastiin uu siinayo bishan waxaana uu sheegay in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron aan lagu soo dhaweyn doonin Israa'iil ilaa iyo inta miiska uu saaran yahay go'aankaas sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil intii ay ku jireen wadahadal qadka telefoonka Saar waxa uu ku yiri Barrot
dib uga laabta hindisaha Faransiiska ee aqoonsiga dowlad Falastiiniya isagoo sheegay in hindisahaasi waa sida hadalka u dhigaya uu wiiqayo xasiloonida bariga dhexe isla markaasna uu dhaawacayo danaha qaranka iyo amniga Israa'iil. Israa'iil waxay doonaysaa xiriir wanaagsan oo ay la yeelato Faransiiska, laakiin Faransiiska waa inuu ixtiraamaa mowqifka Israa'iil marka ay timaado arrimo xasaasi oo ah amniga iyo mustaqbalka Israa'iil, ayuu Saari yiri. sidoo kale waxa uu sheegay in booqasho kasta oo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ku imaanayo Israa'iil aysan meesha xilligan ku habooneen ilaa iyo inta Faransiiska oo ku adkeysanayo hindisihiisa. xalay warbaahinta Kan laga leeyahay Israa'iil ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu shardi uga dhigay booqashada Macron in laga tanaasulo hindisaha aqoonsiga, laakiin madaxweynaha Faransiiska ayaa garafka ku dhuftay shuruudahaasi. labada wasiir ayaa sidoo kale ka wada hadlay xaaladda bariga Gaza, habka cunaqabataynta Yurub ay u saarayso Iiraan, waa saddexda wadan ee reer Yurub, xaaladda Lebanon iyo dagaalka Ukraine, sida lagu yiri warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil. isla wararka dhanka diblomaasiyadda ee la xiriira Gaza iyo Falastiiniyiinta, xogayaha amuuraha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa ku andacooday in dalalka doonaya inay aqoonsadaan dowlad Falastiiniya ay u sheegeen in arrintaasi ay abuuri doonto dhibaatooyin waaweyn, si hadalka uu dhigaya. Rubio ayaa tilmaamay in aqoonsiga dowlad Falastiiniya uu kicin doono falceli ka timaada Israa'iil, isla markaasna uu adkayn doono gaarista heshiis xabad joojina. waxay taasi ku daray in aqoonsigaasi uu sababi karo qorshayaal lagu darsanayo dhul oo laga qabsanayo Falastiiniyiinta. Rubio ayaa xusay in dagaalka Gaza uu dhammaan karo berri haddii Xamaas ay isdhiibto oo ay sii dayso la haystayaasha, wuxuuna carabka ku adkeeyey in hadda diiradda la saarayo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Gaza iyo in meesha laga saaro Xamaas, waa sida hadalka u yiri. wuxuu sheegay inay bixiyeen gargaar badan isla markaasna aysan jeclayn dhibaatada Gaza, oo sida hadalka u dhigay, balse ay diyaar u yihiin in ay bixiyaan gargaar bini'aadantinimo oo dheeraad ah marka dagaalka uu dhamaado, isagoo ka hadlayay qorshayaasha ku aadan qabsashada dhulalka Falastiiniinta. wuxuu sheegay inaysan weli hayn kuwa rasmi ah oo lagu falanqayn karo arrinkaas marka ay soo baxaan. wararka Israa'iil intayna ka bixin, wargeyska Haaretz ee ka soo baxa Israa'iil ayaa ka soo xigtay ilo xogaal ah in caawa ciidamada Jordan ay xabsiga dhigeen dhowr askari oo Israa'iili ah oo la sheegay in ay ka gudbeen xadka aaga Waadi Caraba. wargeyska Haaretz wuxuu intaas ku daray in ciidanka Jordan ay askarta Israa'iil ku hayeen saldhig ciidan saacado dhowr ah si loo weydiiyo su'aalo ka hor intii aan dib loogu soo celin Israa'iil. Haaretz ayaa xusay in askarta ka gudubtay xadka Jordan arrintaasi aysan ahayn mid markaasi saraakiishooda ay ka haysteen ogolaansho, waa sidoo loo dhigay. wargeyskan ayaa waxa uu sharaxay in ciidanka Israa'iil uusan markaasi ku wargelin Jordan in ciidamo halkaasi ka soo gudbi doonaan sida hadalka loo dhigay. waa tahay markan waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay. aalaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen. dagaalkan ka socda bariga Gaza saameyntiisu ay balaaran tahay. habeen dhaweyd waxaan idin soo gudbinay sheekada ku saabsan xulka qaranka ee waddanka Masar oo diiday inay la ciyaaraan xulka Zambia, sababtuna ay tahay tababaraha xulkaasi oo Israa'iil u dhashay. hadda waxaa la leeyahay kooxda Villarreal ee ka dhisan dalkaasi Spain kana ciyaarta horyaalka La Liga ayaa taageerayaasha waxay diideen ciyaartoy kooxdu ay soo iibsatay. inta badan marka kooxdu ay soo iibsanayso ciyaartoy, taageerayaashu way farxaan oo waxay isleeyihiin armo kooxdu wax ku soo kordhaya, yacni goolal iyo guulo. laakiin markii ugu horeysay Spain waxaa ka dhacday arrin la yaab leh. taageerayaashii mudaharaad oo waxay leeyihiin ciyaartoygan lagu magacaabo Solomon oo u dhashay Israa'iil ma doonayno inuu maaliyadda kooxda uu xirto oo aynu taageerno oo magaca iyaga uu ku ciyaaro. sababtu maxay tahay? waa arrin la xiriirta dagaalka Gaza. haddaba aynu eegno warbixin amurahan laga qoray. taageerayaasha kooxda horyaalka La Liga Spain Villarreal ayaa caro xoogan ka qaaday in maamulkoodu ay soo iibsadeen ama ay la soo wareegeen ciyaartoyga Israa'iiliga Manor Solomon. waxaana la sheegayaa in ama ahaan xilli ciyaareedkan uu uga soo wareegayo kooxda Tottenham. heshiiskaasi markii lagu dhawaaqay, taageerayaal fara badan oo ka tirsan kooxda Villarreal ayaa muujiyay si ay uga soo horjeedaan
in ciyaartooygan uu ciyaaro sababta waxay tahay falal ka dhan ah Falastiiniyiinta oo uu ku kacay hadda ka hor wuxuu sheegay in Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo waxaana la sheegay in ciyaartooygan uu markaasi u muuqanayo inuu difaacayo ficilada Israa'iil ay ka wado marayka Gaza baraha bulshada ayaa waxa buuxiyay fariimo ka dhan ah Solomon oo waxa kamid ahaa wuxuu si sharaf leh u taageeraa xasuuqa Israa'iil Maanel Solomon laguma soo dhaweynayo Villarreal Solomon ayaa horay wuxuu u muujiyay taageerada siyaasadeed ee Netanyahu isagoo ku dooday Israa'iil inay xaq u leedahay isdifaaco warbaahinta Spain ayaa xustay in dawladda Madrid si weyn ay uga mid tahay dawladaha cabaareynaya ficilada Israa'iil ee marayka Gaza inkastoo taageerayaashu ay ka hor yimaadeen arrintan haddana waxaa la sheegayaa in markaa kooxdu ay si rasmi ula soo wareegtay ciyaartaygan hadda ka hor waxa ka dhacday waddanka Jarmalka kooxda Düsseldorf ayaa waxay la soo wareegtay ciyaartayga Sine Weisman balse si degdeg ah ayay heshiiskiisii u barisay kadib markii la sheegay in taageerayaashu ay ka caroodeen ciyaartaygaas laakiin kooxda Villarreal iyadoo waxay ku adkeysanaysaa ciyaartayga inuu ciyaari doono kooxda taageerayaashu laakiin waxay leeyihiin garoonka noo balana macnaha hadduu kubadda taabtaba meeshii loo sacbin lahaa in lagu oriyo oo laga soo horjeesto ayay u badan tahay sababtuna maxay tahay waa dagaalka qasay saameyntiisa waa hagaag inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa